Maxaa Koonfur Afrika ka qaaday nidaam sharci ah oo cunsuriyad ku dhisan, balse maanta loogu yeero mid ka mid ah dimuqraadiyadda ugu adag Afrika, halka Soomaaliya ay weli ku dheggan tahay qabyaalad siyaasadeed iyo muran aan dhammaad lahayn? Maxaa Isbayn u suurageliyay inay ka baxdo kaliya-talisnimadii Franco oo ay u noqoto quwad dhaqaale oo Yurub ah, halka Soomaaliya ay weli ka dhaqaaqi la'dahay dastuurka iyo habka doorashooyinka? Maxay Rwanda oo ahayd mid ku daatay xasuuq qabiil ugu awoodday inay isu beddesho dal amni iyo horumar dhaqaale ku dayasho mudan, halka Soomaaliya ay weli ku tiirsan tahay heshiisyo aan hirgelin iyo wadahadallo aan miro dhal lahayn? Haddii Colombia ay heshiis nabadeed ku soo afjartay dagaalkii sokeeye ee nus qarniga socday, maxaa Soomaaliya ka hortaagan in ay ka gudubto colaadaha siyaasadeed iyo kala shakiga qabiil ee hareeyay? Su'aalahan ayaa ah kuwa la isweydiin lahaa haddii aan rabno in aan fahanno sababta ay dalal xilli hore ka liitay Soomaaliya ay maanta uga horreeyaan, iyo sida ay u doorteen waddooyin adag oo tanaasul iyo wadahadal ah oo horseeday in ay noqdaan qaran midaysan. Taariikhda ayaa caddaynaysa in xallinta khilaaf siyaasadeed iyo muran dastuur aysan ahayn arrin mucjiso ah, balse ay ku dhisan tahay go'aan adag, hoggaan aragti dheer leh, iyo rabitaan bulsho oo ah in la dhiso mustaqbal wadajir ah.